kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiin meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka Hal Abuur. Toddobaadkan barnaamijka Hal Abuur waxaa marti noogu ah fanaan miisaankiisu culus yahay, martina ku ah magaalada Muqdisho oo la yiraahdo Dayax Cishqi ama Cabdifataax Dayax saad u taqaanaan. Waxa uu kamid yahay fanaaniinta da'da yar ee Soomaaliyeed. Sharaf ay noo tahay in isagoo magaalada marti ku ah in uu Hubaal TV studio hor yimaado waliba dhankaas iyo hooygii fanka ayuu ka yimid. Cabdifataax ama Dayax Cishqi kusoo dhawo barnaamijka Hal Abuur Hubaal TV. waad maasantay walaal waan ku dhawahay mudana waan la socday Hubaal TV saasana igu kaliftay in aan maanta halkan imaado ama aan iskeeno Hubaal TV-na aad baan bogaadinayaa waad maasantay xawrul Cabdifataax ama Dayax magaalada Muqdisho imsa joogtaa magaalada hadda muddo kooban baan joogaa haye muddo bil ah baan joogaa bil waana la qabsaday hadda si fiican ka warna caasimada waa dad bulshaawiina ku nool magaalo xadaarad leh qofna waxaan ku martiyada marti ka maragto qofka hada marti iska dhigay nufsaasan ku arko marka hore fikir noocee ah ayaad ka heysatay magaalada caasimada magaaladan horta dadku soo maskaxeedka ay haystaan ayaa rabashaaga kala jirinba waxaa laga yaabaa inaad dhibaato iyo balaayo iyo looq kasta la isugu jiray inaad moodayso laakiin aan sidaaba ahayn xitaa aan dadku ilaa yaad hashaani ku garanayba wallahi qofku ilaa hashaaniga ma garan karo shib meelahaas ay kartaa iska aamusnaa kartaa laakiin markaad la hadasho ma garan karaad magaalada marti ku tahay sidaan ka aaminsanaa iyo sidaan ku arkay isma laha hooygii fanka Hargeysa ka imaaday Somaliland fanaan daayiro had soo baxay waa tahay maxaa kugu dhaliyay fanaan noqoto anigu heesaha horta iyo barnaamijkan iyo fan iyo suugaanba markii aan iska yaraa heesaha waxa jiray inaan fanaaniintu markay heesayaan waaweyn oo kale heesooda waan iska dhageysan jiray qiimeyn baa iska sameyn jiray waxaan xasuustaa markaan yaraa heesii waqtiga la qaadi jiro kale 2010 2019 markaan meelaha ka maqlay inaan qiimeyn dhaho ninkan sidoo heesaya taro ninkan waxa khatarta qofkaas insan uu heesaya qof khatar ma wax iska ka jira markaa qiimeyntan iyo barnaamijkan igu soo socdaan si garanay wax hadda igu dhashay ma haba qof familka kamid ah ama ehelka kore oo fanka ku jira ma jira wallahi may laakiin dad wax sameeya awoo kala jira oo suugaanyahana laakiin dad heesay may waada ugu hore hooy fanka Hargeysa waa ka imaaday dadka xaqaas ka imaado waxa la yiraahdo iska cod macayeen codka Allah ku galaday waayahay marka la ku soo dhawo xamar cadee dad iska qalbi fiican magaalo aysan u kala socneen dadka Soomaaliyeed anagana maadaama Hubaal TV aad doortay muuqaal baahiye kugu horeey marka Muqdisho maad Soomaha si fiican ana ka soo muuqato sharafeen oo tahay anagana waxaan leenahay ku soo dhawo xamar Dayax Cishqi waxa ku rajeenayaa fankaaga horumar fiican inay ka gaarto heesta kugu horeyso markaad fanaan intaadan fanka soo galin heestaadii kugu horeysay ee aad fanka ku soo gashay magaceedu ma noo sheegi kartaa heestaas aan ku soo galay anigu fanka Udoon baa kamid ah Udoon waayahay malaha gabar baa lagu amaanayaa mi waa iska calacalwey diya marka heestaas Udoon baa la yiraahdaa heesii aan ku bilaabay kamid tahay 2018 heesa leedahay miyaa mise hees hore loo qaaday anigaas kale waayahay ayaa ku sameeyay markaa ereyada waxa iska ran khadar murtikoriya la yiraahdo laxankan aniga saaray muusiga waqtiga waxa uu tumayneen abqaayara la yiraahdo waa Hargeysa jooga waan ku maqashiinaya ma filaya ya aniga iyo dadkaba adiga iyo daawadayaashaba waay midaan uftayaan jeclaaday qalbiga ku casuumi jiray midaan cusubay lahaa calafku hadduu la tagay waa heesi ay ugu horeeyay calafka caada la tagay calafka heesta raaciyay marka waa 2018 bilowgeedii waa heesiyaan waqtigaas kadib aanan dib u raacdeenba fanaaniintu waxa la yiraahdaa marka la wareysanayo heestaada kugu horeysay ama heestaas noo soo qobadan ama xasuustay dhahan xasoo baa leedahay hada kuwaas oo kuugu horeeyaan ku bilaabo marka wixii bilowgii dadku ay ka tagayaan mowjada kale galayaan waa run taasa keenaysa in aanan dib u sii raacdeen xitaa eriyada aad khalkhalado aad saak suudiso fanaan aad ku dayin jirtay oo aad fankiisa jecleed oo sidii lahayd alla ilaahay fanaanka sadaad gaarneed fiicnaaleed ma jirtaa oo fanka ugu dayato si fiican fanaanin badan baa jira laakiin anigu waxaan taageeraa Cabdifataax Axmed Taabir افتح يا راه ها واي هاي
heesiisa waxaan ugu jeclahay heesa badan baa jira uu qaadan dhageysto laakiin milic oo kale milic heesta Facebook heesa badan uu qaaday laakiin milic aan ugu soo inkastoo fanka xoogaa uu waxa weeye social media han buu soo gaadhin waqtigan sidoo aan la dug soo gaadhin aad iyo kulli waa si wanaagsan lahayd laakiin waqti hore iska dhaaf aad iyo aad markaan milic aan heesiisa ugu jeclahay anay ku dhahay way heesta milic oo maadaama Cabdifatax Tacabir aad taageeraysay ma soo qaban kartaa way soo qaban mililicada quruxdiyo inantan ma jeertay muuqaago cana oof عليك mafaxooleynu miranaya hawdkiyo muxiboyadoo kale manka daweysa mar haddii adduunyada miisaan la saaran mudhada ka soo yidhi muhashada daarenkii caashaqo mutaysta muhashada daarenkii caashaqo mutaysta mawjadi kalgacalkan aanu soo maquurte walal ma ilahaysa degan ma ilahaysa taasay kana marka heesas qaadayso dadka ma israhan xogaa waa keentay codka Cabdifatax daniyahow Cabdifatax horta si cod gaar u leeyahay anigu cod gaar aan leeyahay laakiin waxa naga dhaxeeyaan heesiis markaan qaadiyo kale aan ilaalinaya waa nidaamkii laxanka ahaa toonkii iyo teembadii iyo laxankii un baan ilaalinaya laakiin dadku kala cod weyn intaas dee sidoo u marinayay aan baan doonayaan mariyo saaxiib haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir adiga oo kaliya ayaa guusheena ka dhiman follow dheh ama subscribe page-keena mahadsanid